qofkii oo waxaa la yidhi suuq walba moogta qof waalan lagama waayo qofka dukaanka haddii la imaado oo shaarbaha lagu qaato maxaa ka dhacayo akhyaarta hadda waxaa waaye waan casriyeynaynaa waxaan cunaynaa meeshaan maxaa la dhahaa torto iyo meeshaan qaxwo ayaan hadda ku haysanaa markaan intaan aan cunno oo baashaalno meesha kadib maxaa la dhahaa barnaamijkeena waxaa waaye shinnidii ayaan duubaynaa xoolihii kaltana waa arkaynaa waxaa kaleeto iyadana very maxaa la yidhahdaa interesting meeshan waxaa ku yaallo oo baadiyahan saan u taalo dukaan oo adiga aad wax iska iibinayso oo qof bilaadan oo ilaalinaya aysan jirin horta nabadda wax lagu sheegaya inay muhiim tahay waxaad ogaanaysaa dukaankaasna waa soo fiirin doonaa programka la socda ilaa hadda haddii aadan subscribe saarin fadlan subscribe saar waxa dhan oo maxaa la yidhahdaa oo nagu qasbaa inaan waxaan samayno waa inaadna dhiirigelisaan oo like iyo subscribe-ka nagu caawisaan programkaas oo guriga hadda tanaan soo arki doonaa laakiin waxaa waaye Swedish fika asxaabay sidaad fiidiyoga aad usoo daabateenba qaybta highlightkiisa maanta waxaan boqonnay beer ku taalo maxaa la yidhahdaa Sweden tuulo ku taalo oo aad u yar beertan waxyaabaha cajab geliya waxaa waaye waxaa iska lahay laba qofood oo famil ah oo nin iyo xaaskiisa marka labadan qofood meel waxay degeen oo dadka dhan ka baxsan oo baadiye ah oo wax bilaadan aan u dhaweyn waxay ii sheegeen in hal qof oo daris kaliya ay leeyihiin oo dhulkoodan intaasoo eekar oo la facya marka dhulka ay haystaan waxaa waaye waxay ku haystaan xoolo sida ari oo idaa u jooga waxaa kaloo joogta lo digaag iyo dooraboomato waxaa kaloo meesha ay ku dhaqdaan baasha la yidhahdo shinnida oo malab ay meeshan ka sameeyaan malabka meeshan ay ka sameeyaan soomaalida marka anigana horta malabka maxaa la yidhahdaa horta aad iyo aad aan u aaminsanahay inuu daawaad yahay laakiin malabka waxaan u isticmaalnaa malabka kaligiisaan cabnaa laakiin dadkan oo wadankan joogo malabka waxyaabo badan oo kale ay ka sameynayaan oo manfaacad leh sida maxaa la yidhahdaa saabuun malab laga sameeyey waxyaaba oo cosmetic loo isticmaalo nimankan dhulkooda waa ujeedaan dhulkaas sidaas u weyn waxaasoo geedana ku abuuran ujeedada dhulkaasoo dhan waxaa degan laba qofood laba famila meeshaan degan waad ujeedaan waxa sida geedaha lagu abuuray oo maxaa geedahaas geeda la iska goynayo ma ahan meeshan sida u yartahay iyo waa ujeedaan maxaa la yidhahdaa sida cagaar ay u tahay ujeedaan oo geedahaas sida macnaha loo kontrolay oo wadankeena maxaa la yidhahdaa geedihii oo dhan intaan xaluufinay aan waxaan ka dhiganay maxaa la dhahaa dhuxul aan ka samaysanay waad ujeedaan dhulkooda barwaaqada iyo nimcada ka muuqato waad ujeedaan waxaas anaga in ka badan wadankeena wuu heli karaa waana lahaan jiray laakiin annagii ayaa gacmaheena ku jarnay oo geedihii baabi'nay wixii oo dhan aan dhulka dhignay laakiin mugiya dadka nagama dhul fiicna dhul haddii la yidhahdo anagaa ka dhul fiican laakiin dhulkeeni waxaa waaye dad aan maxaa la yidhahdaa aanan tashanaynin ayaa si xun u galeen waa ujeedaan inta isha qabanayso dhan waa ujeedaan hal meel oo ebera ma arkaysid meesha guriga ka dhistaan kaliya maahane inta kale waa geedo oo dhir dooga ujeedaan marka waxyaabaha la yaab kale oo meeshaan aan kusoo arkaa waxay tahay dadkan cafeteria ayaa meeshaan ku sameeyeen waa meeshaan magaalada hadda aniga aan kasoo tegay almost masaafo waxaan soo galay 40 kilomitir ayaan meeshaan usoo socday marka meeshaan qofaa isdhahay war meeshaan qofka qaxwo u imaanaya waayo 40 kilomitir usoo baxayo waa la imaanaya dad badan ay imaado anaga laftirkeena meesha tagnay markaan meesha tagayn aniga aqoon umaan lahayn dadkan oo meesha inay degan yihiin hataa aqoon ma u lahayn googlahan ka fiirinay waxaan dhahnay kaliya cafeteria nagu dhow oo meel baadiye ku taalo jawi degan oo aan qaylo iyo buuq lahayn ayaan googlaha gelinay kadibna meeshaan ay soo baxday isla markii waan akhriyay macluumaadkooda waxaabay iibiyaan inay qaxwo iyo maxaa la yidhahdaa doolsho iyo waxaaba noocaas inay iibiyaan oo adiga cunooyin kale to fudud inay meesha ay ku sameeyaan ayay meesha ku qorneed iyo xoolo iyo waxaas kale inay hayaan marka iyaga muhiimadooda waxaa waaye dadka oo xiiseeyeen waxa nature ka la yidhahdaa ama maxaa la yidhahdaa jawiga degan oo aan sawaxankii qaylada aan lahayn dadka jecel ayay ugu talagaleen meeshaan inay imaadaan oo masaafadaas ay usoo galaan oo adigoo iska qaxweynaya aad xoolihii naturalka ayaad daawanaysaa marka xoolahan iyaga ay haystaan xoolo ma ahan ay cuno ahaan oo hilib ahaan loo haayo ma ahan ama caano laga iibinayo ma ahan laakiin waa xoolo oo dadka u imaanayo oo kafeegeeda cabaya inay daawadaan oo ku indhadoogsadaan dadka xoolaha jecel sida anigoo kale iyo dad kale to badan oo aniga lamid ayaa jiro marka meeshaan waa loogu imaanaya website ayay leeyihiin
waa tuulo dhan oo hal qof oo daris ay leedahay dadaa qaxwo meeshaan u imaadaan dadaa waxay u imaadaan inay jawiga ku degsadaan waxaa kaleeto loo imaadaa meeshaan in malab laga iibsado iyo waxyaabo kaleeto oo kala duwan meeshaan haddartan dukaankan waxyaabaha la yaab kale waxaa waaye dukaan oo adiga aad wax iska iibinaysid waaye qofka wuu imaanayaa dukaankan asagaa iska furaayo asagaa shaygiisa soo qaadanayo asagaa iska iibinayo bal ka waran maxaa la yidhaha waddankeena oo kaleeto hadda haddii laga dhadhacsiiyo qof la yidhaha barnaamijkaasi taa meeshaan ka jira dukaan intaad tagto asaga aa wax iska iibsanaysid ayaa jiro ma laga aaminaya dad badan hadda commenti waxay igu soo qorayaan waxaan beentan iyo barnaamijkan inta like uu ku raadinaa ama views uu ku raadinaa laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay dukaankan qof oo shaqaale ma joogo caawa haddaad imaato ilaa caawa wuxuu furan yahay 3 saac habeen muu furan yahay haddaa 2 saac iyo bar caawa imaato dukaankan adaa imaanaya waa iska furaysaa waa gelaysaa haddartaan nala soo fiiriyay dukaankan waa ujeedaan dukaanka hadda waan iska furnay dukaankan hadda ma qofaa ujeedin hadda meeshaan yaa jooga meeshaan shaqaale ma ujeedaan shaqaale meeshaan ma joogo shaqaalaha ana bis waa meeshaan waxa joogo wax aan rabaa meeshaan kasoo qabsanaa shayga aan rabo oo i qanciyo ayaan iibsanayaa waa ujeedaan halkan waxaa kugu yaalo kaar shayga aad soo qaadato kaarkaa xagga saaranaysaa waxaagaad iibsanaysaa kabacdina waa iska baxaysaa macnaha waxaa waaye amniga iyo in lays aamino iyo dadka inay dad oo macnaha ay aamin yihiin ayaa meeshaan la ogyahay marka looma baahna in dukaamada la xirxirto marka wax walba amnigay hoos imaanayaan meeshaan waxa qofka usaan u samaystay hadduu ogaan lahaa in wixiisa la xaluufinayo oo maxaa la dukaankiisa lagu yaacayo dukaankiisa ma dhihi lahayn maxaa la adiga intaad imaato shaygaarta qaado kabacdi lacagtaada iska bixi iska baxa adiga waa barnaamij macnaha aad iyo aad iga gadan waayo oo tuulada aan ku arkay ku taal Sweden aan ku arkay waayo maanta waa ujeedaan meeshaan diploma ay haystaan warqadan waa warqad oo aqoonsi ah waayo waxa la ujeedaan waxay qaadeen dukaanka oo maxaa la oo sanadka ee magaaladan ay qaadeen dhowr jeer ay qaadeen waa ujeedaan shahaadadooda meeshaas u taala because of waa dad oo maxaa la dadka aaminan waayo ya hadaad kafeed qaadanaysaa hadda buugaagay haystaan oo waxaabahooda barnaamijkooda maxaa la naturalkooda iyo waxaabaha ay meesha ay ku hayaan waxa ku saabsan ay meeshan ku hayaan marka halkan markaad fiiriso halkan waxa ku yaala malabkii malabku waa kan malabka midka rabtid malabkan hadda waa malabka cadaawashinida hadda aan soo aragno meesha taalay ayaa laga soo shubay dhalada bisa la soo gaday malabkaas laga soo shubay halkan lagu shubay ka bacdi waxay iibinayaan 75 koron iibinayaan waa $7 iyo bar waayo waana nus kiilo waayo mar isla malabkan oo kale hadii aad dukaamada aad ka doonto waxa laga yaabaa in laga siiyo maxaa la yiraahdaa $14 ama $15 laga siiyo halkaana waxay ka joogtaa $7 iyo bar ama $6 meelahaas waaye marka ujeeda malab kaliya ma iibiyaan dukaankan waxay kala iibiyaan waxyaabaha natural waxa ujeeda kullina wax meeshooda ay ku sameeyaan waaye waa basbaas waaye basbaaskan meeshaan lagu sameeyay meeshaan oo ka baxa waa la shiiday meesha lagu shubay dhalaa laga dhigo waxa concept marka ma halaabaya marka halkan waa ujeeda halkan waxa ku jira waa paron waa qudaar oo la qalajiyo waay ama malmalaad laga sameeyo waay waxaana halkaan ay ka baxaan dukaanka sida ay sheegeen waxyaabaha dabiiciga ay xooga saaraan ama waxyaabaha iyaga bis ay sameeyaan wax oo ay meel kale ay ka soo gadan ma jiraan soo jeedaan shukulaato marka aqaarta waxyaabo badan ayaa waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa nin adduun joogo maxaa aragto ku laaban adduunkan aad sii joogtay waxaad arkaysaa waxyaabo aad iyo aad ku fajiciyo oo ka yaawiyo waayo isbaan dheheen dukaan dadkii lahaa intay iska soo xiran dhahayaan wareey adille waxa iibsa adille iska gad adille ka tag meeshaan waa shay macnaha aad iyo aad iga yaabiyo waay halka markaan fiirno halkan saliid cadaydo waay ubax iyaga u baxaa laga shiiday saliidan oo ujeedaan waxaan wax dabiici ah waay dukaanka waxaan fiirinaynaa haddartaan ninkan walaalkay ayaa iibsanayo bal waxaan arkaynaa qaabka loo iibsanayo arkaynaa bal jalaata ayuu iibsanayaa bal waan fiirinaynaa marka dukaanka ثلاثة قيمة هذا القسم كفيرنا و 29 كرون واي
waad soo baxaysaa mashiinka imaanaysaa waxaad gaabanaysaa cagaarka lacagtaad ku qoraysaa markaas intay tahay adaa ku qoranayo wax walba kadibna kaarkaaga saaranaysaa bilible muban korina gelis kaarkuu geliyey waa kaas saasoo ku iibsaday waxaa u soo baxayo rasiidkiisa u soo baxay saasna jalaatadiisu ku iibsaday aada umaasan tahay marka barnaamijku waa kaasaa saasa ku iibsanaysaa waxaaga lacalla qofkii oo waxaa la yidhi suuq walba moogta qof waalan lagama waayo qofkii isdhaha lacalla meeshaan intaad imaato ku yaaca habeenkii oo kaleeto dad badan ay soo weydiin doonaan dhihi doonaan wariha dukaanka haddii la imaado oo shaarbaha lagu qaato maxaa ka dhacayo taas waa laga baalan degay meesha camera kugu xiran waa ujeedaan dukaankaas cameradaas halkaas ku suran ninka oo dukaanka iskale waxaa laga yaabaa xaafadiisuu joogaa cameradiisa computerku uu ka daawanaya wax allaa wixii socdaba waxaa laa meeshaas kaaga fiirsan asagoo gurigiisa isagoo joogo fadhigiisa isagoo iska joogo oo tvgiisa iskaga xiranaya camerada dukaankiisa meeshaasuu ka haganaya bano marka wuxuu arkaya shay walba soo qaadanaysid iyo maxaa la yidhahdaa shayga inaad bixinaysid akoonkiisuu ka arkaya wax walba marka macnaha waa dukaanka waa la ilaalinaya laakiin waxaa lagu ilaalinaya qaab u casriyeysana loo ilaalinaya waxaana xusid mudan ninkan waa nin reer baadiye waay waa meeshaan aan joogno waa meel baadiye waa meeshaan magaalo ma ahaya marka meeshaan isagoo baadiye jooga xataa adduunyada casriga ayuu la jaan qaadaya ninkan halkaana waa kafeyga kugu diyaarsan daarteeda kafeyga caadiga ah kafeyga dhexdhexaadka midka oo strongiisa kafeyga midka zaa'idka oo maxaa la yidhahdaa oo rasiinka zaa'idka daartida ama midka oo weliba oo waalida cas ee daartida waa kaas koobka xagga ka soo qaadanaysaa sokortaada soo qaadanaysaa waxaagaas ku darsanaysaa hada wasalaam malab daarta ku darsanaysaa daarta sokoraa ku darsanaysaa halkan caanihii caleen shaahi ku taalo halkan caleen shaahi baa ku taalo caleentaada shaahaas ka cabaysaa daartid marka waa barnaamij micnaha annaga naga maqan waayo haddaanana Soomaali inaan annagoo maxaa la dhahaa xoolaheena dhaqanayno oo waxyaabaheena hidiyaha dhaqankana lagu yaqaan annagoo samaysanayno inaan waxyaabo sii casriyeyno aan nololka cusub wax kale aan ku darno aqaarta maanta waxaan joognaa cafeteria maxaa la yiraahdaa oo ku taalo maxaa la yiraahdaa meel baadiye ah waa ujeedaan cafeteriadan wax walba lagu gadaa cabitaan haddaa rabtida waxaa lagu gadaa kafeey waa ujeedaan meesha u habaystaan dadkan waa ujeedaan meeshaan saasaa loo habaystay gaariyaa lagu xiray xilliga winterka markii la gaaro gaariga hore laga wadaa haddana waxaa waaye meesha saan waaye waxyaabahan kafeyga waa kan qaxwadaada meeshaan ku cabaysaa haddaa rabtidaa jalaataad cunaysaa marka dadkan xoolana way dhaqdaan shinnina meesha ay ku hayaan akhyaarta hadda waxaa waaye waan casriyeynaynaa waxaan cunaynaa meeshaan maxaa la dhahaa torto iyo meeshaan qaxwo ayaan hadda ku haysanaa markaan intaan aan cunno oo baashaalno meesha kadib maxaa la dhahaa barnaamijkeena waxaa waaye shinnidii ayaan duubaynaa xoolihii kaltana waa arkaynaa waxaa lagu hayaa digaag saad arkaysaan digaagtan meeshaan ku fasaxan tahay meeshaan markaa imaato wadankii markii aan joogna soo xasuusanaysaa waa ujeedaa meeshaan digaagadeeda meeshaasay ku jirtaa hadda waxaa waaye xilliga ay daalinayeen waaye meeshaasay ku jiraan meeshaan waxaa ku jirto hara torbo maatada waatana den har ju electric eller? Bahalkan electric shock uu leeyahay och de kan inte flyga va? Nej.
ujeedaan darbomatadii so hono har honi bi okay meeshaan waxaa joogto shinni ayaa joogto oo dhammaanka active anuga shinnida waxay leedahay winterka xataa waxaa waaye ujeedaa baashaan ku halba doorada u yeeraysaa ujeeda hadda waxay u yeeraysaa ariga u yeeraysaa fiiri nin walba waxaa waaye luuqadiisu wuxuu xoogu yeeraa isla markay u yeertay fiiri soo carareen fiiri donfed you not do kala dom fiiri ariga markay naagta u yeertay tir warkaale waa kaas waa kuwa soo carara waaye kulli waxaa waaye nin walba waxaa waaye nabi allow nin walba luuqadiisu kugu ammaanay waxay jirta waa kuwaas arigan hal mara loo yeeray kulligood waa ammaanay idahan waa idahii oo Sweden waaye aad iyo aad ayuu u degan yahay waa jawi aad iyo aad u qurux badan oo waqti fiican lagu qaadan karo dhahantii haddii aad meeshaan oo kale aad xiiseynaysid fadlan waxaa la yidhahdaa videoga like iyo subscribe noo saar meeshaas aad ujeedaan shilni ayaad ujeedaan shinida halkaan aad inta idin muuqata hadda waa 5 xabo oo keliya laakiin islaanta meesha le waxay ii sheegtay 100 xabo oo beehiveskaas inay leeyihiin oo meesha ay ku kala jiraan oo duurka ay ku kala geesad badan ay kala dhigeen marka adi bal xisaabta isku dhifo 100 xabo oo maxaa la yiraahdaa beehives imisa liter oo malaba ka soo bixi karto marka barnaamijkan run ahaantii waa barnaamij macnaha aad iyo aad u fiican oo wadankiina aan ka bilaabi karno qaabkan shinnida loo dhaqdo dad badan waxaa arkaysaa malab maxaa la yiraahdaa Soomaaliya markay iibiyaan malab badan ma soo saari karaan qaarkood iimaankii ayaa si kale ka naqday waxay sameynayaan malabkii waxaa lagu daraa timir iyo syrup iyo waxyaaba la isku qasqasaa marka waxyaabahaasna maxaa la wax fiican maahan adigoo waxaaga wax nadiif iibsanayo ayaad wax malab fiican aad soo saari kartaa laakiin aqoontii ayaa naga maqan marka waxaan aaminsanahay fiidiyodan oo kaleeto inay macnaha dadka oo xoolo dhaqatada oo wadankii jooga inay macnaha waxyaabo badan ay ka faa'iidi karaan ama haddaad qurbaha joogtod xiiseynaysa inaad wadankii dad ku laabato aad rabto inaad bilowdo barnaamij farming ah marka barnaamijkaasna waa barnaamij oo laga faa'iideysan karaa dhihi karaa marka fiidiyogana insha allah bal maxaa lahaa intaan kuma soo koobi karno waayo fiidiyooga aad ayuu u dheeraanaya dadka badan aana fiidiyooga dheer kama jeclo laakiin haddii aad intaan nala soo gaarto fadlan maxaa lahaa subscribe-ka naga hilmaamin waana mahadsantiin inaad daawateen fiidiyogeena akhyaarta haddartaana meeshaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa fiidiyogeena tan iyo intaan ku kulmi doono maxaa la yidhahdaa barnaamijkan la mid ah haddii ilaah yiraahdo fiidiyoogan fiidiyooga ku xigi doono wuxuu noqon doonaa magaalada la yiraahdo Ireland halkaasoo aan kusoo booqan doono duurjoog sida libaax iyo mas iyo waxyaaba lamid ah marka barnaamijka haddii aad intaan aad soo daawateen waxaan rajaynaynaa inaad laagtii subscribe-kana mar hore noo dhaafteen waayo waxa keliya aan kugu leenahay waaye dhaxalka keliya aan kugu leenahay waa intaas noo reeba waan idin salaaminaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu